بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد ما بعد magacayga waxaa la yiraahdaa Sheekh Yaqoob Yunus oo kamid ah dadka ducaada reer Gaaris ama reer Nordistan oo kamid hadana dadka ducaada ee qaadaan xujayda hogaamiyaan waqtiga xajka yaan kamid ahay الله سبحانه وتعالى وحوليه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إلا سيداد أكتهين وحال جاري بليه قيمها بنابا كل حجرنا وليبا أركان الإسلام كا لبك مد أبا هذا اللي جودج لدونا هذا الله يراهدو مد وحاوية ورمضان كميت كلنا حج كوا رمضان كو waqtigiisa laga hadli doona haduu alla yiraahdo waxaan rabaa arrimaha xajka inaan wax yar aan ka yar hadlo horta waxaan leeyahay dadka muslimiinta ee meelaad joogtiinba xajka ninkii ilaahay uu ku waajibay subxaanahu wa ta'ala oo helayo xoolo uu ku gaaro meesha ayada iyo wax intuu maqan yahay cidiisu ay ku sii baryagashay helayo ruuxa asaga xajka u degdegsado iyo waxba yuusan dib u dhigin sababka waxaa weey ilaan adigoo helaysa xajka hadaad dib u dhigto oo sidii aad ku geeriyooto hadhow xajki waa lagu lahaanayaa khatarteeda ay leedahay mideeda kale waxaan rabaa maanta inaan ka yar hadla haduu alla yiraahdo inaan ka yar hadlaan doonayaa arrimaha xajka wixii isbedel iyo wixii jiro leen waxaa jira kolkii xajka laga soo gadoomo sanad la arkaba kolkii la gaaro ma artay ramadaan uu ka dhiman yahay 4 bilood ama 3 bilood ay ka dhiman yihiin waxaad la tiraadad oo wafdi ahoo ka socdo xajka xujayda ama subkin ka socdo iyo xaj mission wax la yiraahdo ka socdo yaa la diraa dadka asaga waxay soo saxiixan xajka asaga soo socdo wixii lagu socon lahaa ee nidaam ahaa yay soo saxiixan nidaamkii lagu socon lahaa nimanka way soo saxiixeen way noo imaadeen waan fariisanay alxamdulillah si fiican bay uga soo shaqeeyeen jazaahumullahu khayr kolka waxaa weeye waxyaalooyin fara badan oo isbedel oo sacuudi warqadihii ay noo keeneen iyo wixii hadaan aragnay wax fara badan oo isbedel ah jiro isbedelka waxaa ka mid ah kolkii la gaaro bisha shawaal ee soonka uu dhamaada awal hore xajka la guda geli jiray oo xajka arrimihiisa ma artay la waxeen jiray laakiin hadda sidii ma aha isbedel baa dhacay waxay yiraahdeen qolada Sacuudi ama wasaaratul hajj waxyaalooyinka ay tir waxa kamid ahaa 29ka bisha Shacbaan ee soo socota 29keeda bisha Shacbaan 29keeda in xaajiga heemadihi lacagtooda uu bixiyo baasaska lacagtoodana waa inuu bixiyo guriga Makka iyo guriga Madiina waa in la soo kireeyo baasabooriyahana waa in gacanta lagu hayo oo xujaydu ay soo degdegsadaan macnaha kolka macnaha oo la joodeeyay waxa weeye xujayda maartay Kenya inayna moodin nidaamka hore inuu socdo nidaamka hore ma jire waxaan idin leeyahay 29ka Shacbaan wax walbaba waa la iska rabaay ninka xaj ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa ta'ala ama niyeysano doonaya inuu xajiya inuu soo degdegsado waxba dib uu isku sii dhigin oo sida awal hore uu sadheen waxaan sugayaa bisha Shawaal iyo bisha maartay Dhulqa'da iyo yaan sugayaa Shawaal iyo Sidataal Soonfur iyo Sidataal baan sugi inuusan oronine hadda meeshuu jooga kabaha intuu gashado arrimihii xajka qalqaaliheedu inuu guda galo nin walba shirkadii marka uu raaci lahaa inuu la xiriiro macnaha taasaan horta muslimiinta iclaan yaan u joodinaynaa oo ugu baaqaynaa hadaan nahay dadkii xujayda hogaaminaya ee wakiilka ka ahaa ee maartay wax walba ay uga dambeeyeen hadaan nahay arrintaasaan ku boorinayna arrinta kale ka hadlayo waxaa weeyo xagga dawladdeena khayr Allah siiya waa dawlad qiimo badan xagga muslimiinta xagga diinta aayar bay maartay diinteena naguma fargeliso free bayna siiyeen ha ahaatee laakiin waxaan ka codsanaynaa maadaama Sacuudi arrimihii ijraa'aadka iyo nidaamka ay adkeeyeen ayaga waxaan ka codsanaynaa dadkooda reer Kenya ahaa ee shicibka hayay Moombiga iyo alla bariga u socdeen ee xajka soo gudanayeen ee islaamka ahaa baasabooryaha inay u sahlaan oo ayna noqonin sidii sanada hore kac oo kolkii la xareeyo 2 wiil ka dambe interview lagu soo dhajiyo interview kolkii lagu soo dhajiyana sii noqo inayna dhicin
oo xaajiga hadduu reer Kenya uu yahay oo dokumentiisa sax ay tahay baasaboorka in la siiyo oo asaga aan dhinaca oo fudayd aan ka dareena macna waliba arrinta waxaan ka codsanaynaa dawladda iyo dadka anaga madaxda ahaa oo uu kamid yahay ninka la yiraahdo majority leader Aadan Barre Ducaale uu kamid yahay dadkaas aan ka codsanaynaa ilaa dad muslimiin waa muslimka ihtiyaajadiisa iyo dhibkiisa ayaa ka og macna kolka waxaan doonaynaa inay muslimka ma artay ay arrinta ay kala kaalmeeyaan yaan aad iyo aad yaan oga baryaynaa khayr Allah siiye Aadan Barrana xajka wax uu nalaga qabtay jazaahullahu khayr sababka waxa weeye sanad hadda aan soo dhaafnay tii ka horeysay waxaan garanay inta soo jeero ninka daaragtay intuu naqaaday aan u wala tagno la fariisanay oo uu yiri war xajka sidan iyo sidan hala yeelo kolka sidii ayada ahayd baan haddana ugu baahanahay oo muslimiinta ay ugu baahan yihiin oo ajeensiyaalka ay ugu baahan yihiin oo muslimka dhanna uu ugu baahan yahay maanta waliba ka sii darano Sacuudi nidaamkeeda ay adkaysay arrinta waa arrin xaj Ilaahay ajir buu naga siine muslimiinta dawladda ha loola hadlo sidii ay xajka ay ugu sahli lahayd oo ugu tasiilin lahayd oo ruuxa dokumentiisa sax haduu yahay sidii ma artay loo waxayn lahaa waliba la siyama dadka duqeyde 45 ama 50 jir ruuxa haduuba gaaro oo rakinya sax uu yahay anigu uma arki wax hadda interview looga sii qaado asbaabta waxa weeye hadda reer Costa oo kale reer Tanarifa kolkay geeyaan Costa interview laga ma qaado ruuxa haduu ma artay duqba uu yahay waxa la arkay ruuxa inuu dokumenti la fayrini sax haduu yahay maalinta dambe baasaboorkiisa waa la siiyaa war anaka naftaanada waxaan leenahay dadka awaayeelada ee meesha tagaayiin baasaboorka intii loo xareeyo dadka yararka interview laga qaadaha wax dhibaatada ma aha sababka waxa weeye ma artay waa uu noqon kara asaga meesha uu tatay kara laakiin dadka waayeelada billahi calaykum ilaahay khayr haydan siiye in naloo hadlo oo dawladda ma artay ay u takhfiifiso dadka arrintan doonayna arrintan rabna arrintaa weeye dawladeena ha fiirisa shicibkeeda islaamka ee haddana xajka aadaya ha dhowrto ninka xaj aan aadayna asaga baabkiisa waa goona annaka waxaan u hadlaynaa un dadka aadayo rukn min arkaan islaamka inay gutaan aadayeen macnaha waxaan leenahay dadkiina muslimiinta qiimaha badanna ha usoo degdegsada xajka arrimaha xajka waa muddo yar waa ha ruuxa waxaa la rabaa hadda Sacuudi ay ku wadaan kolkii maartay bisha 29ka Shacbaan oo kale baasabooryo xujayda hadday soo dhamaytirmadaan systemkiba inay furaan systemkiba in la furo oo la arka shirkad la arkaba xujayda ay waday akhdar inuu yahay cagaar inuu yahay waxeedii oo dhanba oo heemadihi cagaar inay yihiin oo lacagta la bixiyay baasaski in la bixiyay guriga Maka cagaar inuu yahay guriga Madiina cagaar inuu yahay reed uusan ahayn oo guduud uusan ahayn ila cagaar haduu noqdo fiisadaada diyaar weeye macna mar ahaanta laakiin midda kale ka hadlayo waxa nidaamka la soo rogay waxa kamid ah wixii awal hore maartay la iska safri jiray ma jirto hadda waxa weeye xaaji la arkaba waa in la duro xaaji la arkaba irbadan jaanjada la dhaha waa in talaalka waa inuu qaato bal maartay dawladda Kenya nafteeda waxyaalooyinka ay soo rogaysa waxa kamid ah hadhow systemka in laga dhowro airportka kolkii la tago xaajiga talaal inuu qaatay inuu qaadanin meelo macluum oo waxayn doonaa dawladda maartay ay hagaajin doonto oo xujayda laga talaali doono macna talaalka waa in la qaato ayadana waa lagu qas ila airportka kolka tagta digada lagu soo celiyo soo dhibaatadeeda ma laha ila sifo marka talaalka uu noogu sahlanaado waxaan leenahay baasabooryaha mabeema ama waqti hore hala sii qaato dawladana waxaan ka codsanaynaa sifo talaalka baasaboor laan ruuxa lama talaali karo baasaboorka numberkiisa waa in la hayo sifo talaalka uu sahlanaado waxaan leenahay ma artay dawladana baasabooryaha ha u dedejiso dadka muslimiinta